السلام عليكم kusoo dhawaada channelkeena Afka Media. Laba gabdhood oo saaxiibo ayaa maalmaha ka mid ah waxay ku kulmeen xaflad aroos. Labada gabdhood midooda ayaa weydiisay su'aal taas oo ahayd saaxiibayaal wiilasha caloosha weyn iyo wiilasha aan caloosha lahayn oo six pack leh way ayaa fiican inaan guursado. Saaxiibadii ayaa ugu jawaabay waxa ku fiican wiilasha caloosha weyn waayo waxaan maqlay in wiilasha caloosha weyn ay dadka kale u maleeyaan inay lacag leeyihiin hadday shaqo raadsadaan oo hor laga siinayo. hadday magaaladaas odaana waxaa la moodaa inay lacag leeyihiin xitaa haddii ay shilin haysan waa la aaminaa oo den xitaa waa la siiyaa. Gabadhii waxay tiri amaad iqiyaami rabtaan waxaan horey u maqlay wiilasha aan caloosha lahayn asaabul six pack inay ku fiican yihiin meelo badan oo waxbarashada xataa ka qatarsan yihiin kuwa caloosha weyn kaana farxinayaan maxaa ka jira arrintaas. Saaxiibadii waxay yiraahdeen taasi waa jirtaa laakiin waxaad ogaataa wiilasha caloosha waaweyn markay dhahdaytaan oo ilbisteen waxaa loo maleeyaa maalqabeen qof walbana wuu aaminaa waxaa la moodaa qof sharaf leh waxaana loo diidi maayo balse wiilasha aan caloosha lahayn oo six pack leh markay socdaan waxaa la moodaa emerji oo maafiyo cid aaminaysana ma lahan sharafna kuma lahan bulshada dhexdeeda waayo caloosha lagu ixtiraami lahaa inay lacag ka dambeyso ma lahan saaxiibay taladayda waa taas shaqo qaran kaliya wax ma tarto nin aad ku faantid ayaad rabtaa daba midkeed ayaa guusan lahayd kan caloosha weyn ama midka six pack leh wiilow adna kee tahay.